السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel ka soo dunida nagala socotaan waa habeenimo Jimcaha bisha Abriil ay sii galayso 29 sanada 2022 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa kamid ah xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO oo sheegay in si degdeg ah loogu soo darayo gaashaanbuurtaasi wadamada Finland iyo Sweden iyo dawladda Ruushka oo jawaab adag ka bixisay isla markaana sheegtay inay muddo kooban ku qabsanayso haddii ay labadaasi wadan ku biiraan gaashaanbuurtaasi NATO iyo xiisada u muuqata mid cirka isku sii shareeraysa. magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida waxaa ka bilowday goordhaweyto rabshado xooggan oo u dhaxeeya dadka Soomaalida ah iyo Axmaarada halkaasi degan waxaana u muuqataa kuwa laga jawaabayo xasuuqa ka socda deegaanka Axmaarada ee dadka muslimiinta ah loo geysanayo. rabshadahaasi iyo khasaaraha ay dhaliyeen ilaa iyo hadda ayaan eegi doonaa. xasuuqa ka socda deegaanka Axmaarada iyo rabshadaha oo la soo sheegayo inay meelo hor leh ku sii faafayaan iyadoo kooxaha xagjirinta ah ee Axmaarada ah ay weerar culus ku qaadeen dad muslimiin ah oo aas loogu sameeyay magaalada Gondar. baarlamaanka wadanka Jarmalkuna waxa uu qaaday tallaabo wadamada reer Yurub u horseedi karaysa colaad isla markaana dagaal sokeeye lugaha u gelin karaysa. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibe soo dhawaada. aan ku bilownay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa maanta sheegay in NATO ay diyaar u tahay inay si degdeg ah u soo dhaweyso wadamada Finland iyo Sweden oo doonaya inay ku soo biiraan gaashaanbuurtaasi NATO. waxa uu sheegay in si degdeg ah loogu soo dari doono labadaasi wadan isla markaana guud ahaanba ay ka mid noqon doonaan gaashaanbuurtaasi NATO. go'aankan oo ay hore u sheegeen in wadamadaasi ay ku biirayaan gaashaanbuurta NATO ayuu sheegay in xilligan ay u muuqato in ay soo gabagabeeyeen isla markaana ay diyaar u yihiin in ay ku soo biiraan. Ruushka oo xuduudan 1340 kilomitir ama 830 mayl la wadaaga wadanka Finland ayaa hore u sheegay inay ku qasbanaan doonaan inay isku dheelitiraan xaaladda isagoo ula jeeda in ay weerar culus ku qaadi karayaan wadankaasi Finland isla markaana ay guud ahaanba sababihii ay u weerareen wadanka Ukraine ay ka mid ahayd in ay doonayeen inay gaashaanbuurta NATO ku biiraan taasina aan laga aqbali doonin inay Finland samayso sababtaasi mid la mid ah. waxa uu sheegay wadanka Ruushku in ay tallaabo degdeg ah ka qaadayaan wadanka Finland haddii ay ku biiraan gaashaanbuurtaasi NATO. Sweden oo iyana la mid ah ayaa waxay doonaysaa inay ku biirto gaashaanbuurta balse Ruushka ayaa iyaga gambar gaaban ugu fadhiyo waxaana u muuqataa in labadaasi wadan ay wajihi karayaan khatar la mid ah midda xilligan ay wajahayso wadanka Ukraine. gaashaanbuurta NATO ayaa horay god dheer ugu riday wadanka Ukraine iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin isla markaana inta aanu bilaaban duulaanka Ruushku ku qaaday dalkaasi ay horay u sheegeen in ay la garab taagan yihiin wax walba isla markaana ay difaaci doonaan wadankaasi balse markii uu duulaanku bilowday ay u muuqdeen kuwa guud ahaanba dib uga istaagay in ay halkaasi ay garab ku siiyaan ciidamada dalka Ukraine. waxaana ay xilligan u muuqataa in god midkaasi la mid ah ay ku ridi rabaan wadamada Sweden iyo Finland oo u horseedi karaya in uu Ruushku ku qaado dagaal toos ah taasi oo wadamada gaashaanbuurta NATO ay guud ahaanba ay sameyn doonaan mid la mid ah mid ay ku sameeyeen wadanka Ukraine sida ay sheegayaan dadka arrimaha dunida ka faalooda. dhinaca kale baarlamaanka wadanka Jarmalka ayaa ansixiyay in hub culus loo geeyo ciidamada dalkaasi Ukraine isla markaana ay dawladda dalkaasi Jarmalku ka qayb qaadato dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine taasi oo la sheegay in ay colaad hor leh lugaha u gelin karayso dalkaasi Jarmalka iyo waliba guud ahaanba wadamada reer Yurub oo markii horeba uu dalka Ruushku u soo hanjabay. haatan anagna wararka naga soo gaadhaya dalka Itoobiya magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida ayaa waxaa goordhaweyta ka bilowday rabshado xooggan oo u dhaxeeya dadka Soomaaliyeed ee magaaladaasi iska leh iyo waliba dadka Axmaarada ah oo deegaan ahaan baryahan dambe ku soo badanayay magaaladaasi waxaana guud ahaanba la soo tabinayaa in dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan ay aad uga cadhoodeen xasuuqa ba'an ee loo geysanayo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka Axmaarada halkaasi oo la soo tabinayo in dad fara badan lagu xasuuqay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala deegaankaasi Axmaarada isla markaana kooxo xagjiriin ah oo Axmaarada ah ay bilaabeen in ay dadka muslimiinta ah beegsadaan halkaasi oo tiro dad ah lagu dilay sida ay warbaahintu sheegay. magaalada Jigjiga ayaa afurkii kadib waxaa ka bilowday rabshado xooggan iyo waliba xiisad culus oo ay dadkaasi
Soomaalida ay uga falcelinayaan xasuuqaasi ka socda deegaanka Axmarada waxaana u muuqatay in lagu beegsanayo dadka Axmarada ee ku dhaqan magaaladaasi Jigjiga oo barihii dambe ama sanadadii dambeba aad ugu soo xoogaysanayay magaaladaasi iyagoo ganacsiyo kala duwan iyo waliba meel ay ku caabudaan diimahooda ka samaystay magaaladaasi taasi oo dad badan oo Soomaaliyeed oo halkaas ku dhaqan ay aad uga deerinayeen waxaana ay xilligan u muuqataa in magaalada Jigjiga ay noqon karayso xudunta dhibaato xoog badan oo dhexmarta dadka muslimiinta ah iyo waliba dadkaasi Axmarada ah ee deegaamada kale ka soo hayaamay ciidamada deegaanka Soomaalida ayaa isku dayay inay xiisadaasi dajiyaan iyada oo dad fara badan oo cadhaysan ay xilligan ku qamamayaan meelaha ay dadka Axmarada ahi degan yihiin taasi oo horseedi karaysa in dhibaato xoog badan la gaarsiiyo dadkaasi Axmarada ah ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida taasi oo laga jawaabayo xasuuqa wali ka socda deegaanka Axmarada ee loo geysanayo dadka muslimiinta walow dad fara badan oo islaam ah ay ka falceliyeen oo deegaanka Soomaalida iyo waliba meelo kala duwan oo dalkaas Itoobiya ku yaala oo mudaharaadyo waaweyn laga dhigay isla markaana aad looga xumaaday waxa ka socda deegaanka Axmarada gaar ahaan magaalada qadiimiga ah ee Gondar dhinaca kale wararkan soo gaaray ayaa sheegaya in weerar culus ay ku qaadeen kooxaha xagdirinta ah dadkii muslimiinta ahaa ee aasay dadkii lagu xasuuqay magaalada Gondar waxaana dadkii joogay aaska ay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid dhanka kooxihii xagdirinta oo wali doonaya in ay dhibaato xoog badan u sii geystaan dadka muslimiinta ah oo ku guda jiray inay aasaan dadkii lagu xasuuqay magaaladaasi Gondar ciidamada deegaanka Axmarada ayaa markii dambe halkaasi gaadhay waxaana ay dadkaasi difaac xoogan uga galeen in kooxahaasi si uun looga difaaco balse dowladda deegaanka Axmarada ayaa wali u muuqata mid ka cagajidaysa inay kooxahaasi xagdirinta ay gacanta ku soo dhigto kooxahan ayaa dadku waxay sheegayaan in ay yihiin kooxihii Fano qayb ka tirsan oo halkaasi doonaya inay guud ahaanba ka ciribtiraan dadka muslimiinta oo deegaanka Axmarada ku soo badanaya sanadihii la soo dhaafay waxaana guud ahaanba dadka Axmarada ah ay diinta Islaamka u qaadanayeen si aan xad lahayn taasi oo ay aad uga cadhoodeen dadkaasi xagdirinta Axmarada ah ee ku dhaqan deegaankaasi Axmarada waxaana masaajid fara badan laga dhisay deegaanka Axmarada halkaasi oo ay dadkan Axmarada ah xilligan doonayaan inay bartilmaameedyo xoogan ka dhigtaan magaalada Gondar oo ah magaalo qadiimi ah isla markaana ay ku nool yihiin dad fara badan oo Axmara ah oo isla haysiinaya magaaladaasi isla markaana ay u muuqato in ay magaaladaasi u tahay xudunta dadka Axmarada ah ay ka bilowdeen rabshadahaasi muslimiinta ku dhaqan magaaladaasi Gondar oo laftirkooda taariikh fog ku leh magaaladaasi ayaa doonaya inay difaacdaan magaalada isla markaana kooxaha xagdirinta ay u galaan difaacyo xoogan halkaasi oo ay ka dhalan karayso in iska horimaadyadu ay intaasi kasii ballaadhaan dowladda federaalka dalka Itoobiya ayaa sheegtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto cid walba oo isku dayda inay kala qaybiso dadka dalkaasi Itoobiya ku wada nool ee diimaha kala duwan haysta dowladda Itoobiya ayaa guud ahaanba dadka ku wada nool waxa ay u qaybsan yihiin dad fara badan isla markaana diimahooda iyo waliba dhaqamadoodu ay kala duwan yihiin waxaana halkaasi ay muddo ku soo wada noolaayeen iyaga oo aan wax rabshadaha iyo dhibaatooyin noocan oo kale ah aanan wali ka dhicin dalkaasi Itoobiya waxaana guud ahaanba u muuqataa in xilligan ay dhibaatadu sii xoogaysan karayso iyadoo dowladda Itoobiya ay markii horeba la daalaa-dhacaysay dhibaatooyinka kooxaha jabhadaha ee dowladda ku kacsan waxaana ay xilligan u muuqataa inay u raaci karayaan rabshado diineed kuwaasi oo ka xoog badan karaya jabhadihii ka dagaalamayay dalkaasi Itoobiya xaaladana sii xumayn karaya akhiir sarafta leh hooda nagala socoto uu tan iyo kulanti dambe nabadgelyo